gobolada qurba joogta ah ee ka soo jeeda dalka Djibouti ayaa soo bandhigay dareenkooda siyaasadeed ku aadan madaxweynaha haatan talada haya ee Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaana bahda fanku soo bandhigeen siday taageero hiil iyo hooba leh ula garab taagan yihiin xukuumadda haatan ka jirta dalka Djibouti taasi oo ay sheegeen inay ku talaabsatay horumar dhaqaale iyo siyaasadeedba waxaana hadaladan laga soo jeediyay bandhig faneed weyn oo ay fanaaniintu ku qabteen magaalada London waxaana lagu soo bandhigay heeso dhammaantood lagu taageerayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waana markii koowaad ee fanaaniinta reer Djibouti ee qurba joogta ay soo abaabulaan bandhig faneed noocan oo kale ah dad yow aad u fara badan ayaa ka soo qayb galay oo isugu jira bulshada noocyada kala duwan waxaa halkan hadda iiga muuqda abwaan Soomaaliyeed Saciid Sheekh Abuukar Ilkajiir oo haatan garabkayga taagan aan weydiiyo bal dareenkaagu sidee yahay maantay xafladan sidee u aragtaa maxaad kula dardaarmi lahayd dhammaan daawadayaasha ku daawanaya adigoo soo koobaya abwaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore boqolka boqol ciro adiga telefishinka caalamiga Universal ba wallahi xaq markaad ka eegto anu aad iyo aad baan u farxay dhinaca kale markaad ka eegtana waan qeyrooday waayo anigu dal iyo dad toona dadkaygu way kala daadsan yihiin waxaan leeyahay dadkayga maanta inay wax ku qaataan sida ay dadka reer Djibouti ay yihiin horumarna wax lagu gaari karaa unity walaalnimo iyo isku imaad dadka reer Djiboutina waxaan oranayaa war annaga madaxweynaha iyaga intaanu tuuray aan kama fikrinba maxaa lagu bedelaa oo ilaa iminka isla marka waxaan leeyahay Djibouti idinkuna ha ku dayanina annaga dabaal noqonay dabaalka ku dayane qaladkii Soomaali samaysa ku dayo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ilaashada waa madaxweyne waxidiin raba waxid la sameyn kara annagana dad noo duceeyo Djibouti dadkayga Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolada koonfureed ku dhibaataysan ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu dagaal ka qaboojiyo ilaahay inuu nasiyo nabad iyo unity hees baa soo wada la yiraahdo Soomaaliya dhageyso oo aan si dhaqsaban u soo saari doono marka taasaan kala hadlayaa hadii la yiraahdo insha Allah abaan aad iyo aad u maasan tahay aad iyo aad mudan ciro maasanid wuxuu ahaa abaan Saciid Sheekh Abuukar Ilkajiir oo ka soo qayb galay xafladii maantay dadku aad ay u farbadan yihiin xafladuna waxay u dhacaysaa si aad iyo aad u qurux badan arday Soomaaliyeed isla markaana ka yimid Djibouti ayaan filayaa inuu yahay ka waran dareenkaaga maanta xafladda soo waragtaa dareenkayga boqolkiiba boqol waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladii lagu tagaaray madaxweynaha Djibouti waxaan leenahay adiga xisbigaaguba ha guulaysta bisha April 8 annaga hadda reer London ahay waan taageersanahay waaniga taageeraya hiili hooban ila garab joognaa aad u maasan tahay dhammaan waxaa moodaa dadweynuhu inay aad iyo aad u taageersan yihiin madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle halkan sidoo kale waxaa iga muuqda macallow oo isagoo ka soo qayb galay xafladda macallow ka waran dareenkaaga caawa xafladda soo waragtaa wallahi caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo markaad dawlad xor ah tahay waa arkaysaa qiimaha ay leedahay ilaahay waxaan ka barinaa sanadkan sanad ku xigo anagana saas oo la naqana Soomaali dawlad xor ah dardaarankaaga maxaad siin lahayd dadka reer Djibouti ee ku daawanaya maanta reer Djibouti waxaan u sheegayaa ha lagu dadaalo nabadda waa wax fiican nabadda waa wax qoriyo wax halkan nabadda ha lagu dhameeyo aad iyo aad baa maasantahay macallow aad u maasan yahay daawadayaal waxaad moodaa dadku inay aad iyo aad uga fakarayaan nabadda iyadoo dadku ay arkayaan waxyaabaha ka dhacaya bariga Middle East ama bariga dhexe waxyaabaha ka dhacaya waxa halkan iga muuqda Mustafa Karaama oo isagu ah musician da'yar hadda waxaan arkaynaa macallow oo ah musician hore balse musician yar waxa muusiga cusub iyo heesaha cusub maanta halkan lagu soo bandhigay gabi ahaanba adiga baa tumay saan maqlay ka waran muusiga dib badan miyuu kugu qaatay ma ku raaxaysanaysay markaad tumaysay muusigan horta wallahi muusigan muddo badan ayaan ka soo wada shaqaynaynay aniga kaligeena ma tumin waxa ila tumay maxamed Karaama ina adeerkayga maxamed Karaama wiilkiisa waxa kaloo qayb weyn nagala qaatay Umar Tesiyo asagana oo nala tumay macnaha heesaan muddo badan ayaan 16 hees ma dhawa laakiin waxa way macnaha haddii dad oo wax sameynaya isku imaadaan wax fiican waa la qaban karaa aniga maxamuud qoomaal
waxaa kaloo qayb weyn nagala qaatay cabdi daa'uud canab bacad adig fanaaniintu way wada badan yihiin kulli laakiin muusigan macnaha waxaa ka wada shaqeeya waa anigi iyo maxamuud iyo cumar tesiyow waxaan ugu talagalnay barnaamijkan jabuuti waa kulli ismaaciil cumar geele cimri dheer iyo caafimaad ayaan wada rajaynaynaa iyo kii guulaysta allaha ka dhigo mustafa dareenkaa ka warran caawa markii halkan aad joogtay waxaan arkay adoo muusig la socda oo raaxaysanaya dareenkaa iga warran caawa see maxaad dareemaysaa والله dareenkayga aad iyo aad uga macnaha wax weyn waa muusiga aniga tumay oo intaan qof ku dheelayso dadka dhageysanayaan macnaha fanaaniin iga waaweyn ku heesay macnaha muusiga aniga aan tumay taas farxad aan la soo koobi karin oo ka mid yahay maxamed axmed qoomaal ee ku xigta macnaha canab bacado xadanteeye macnaha fanaaniintu way badan yihiin kulay taas ayaa farxad yahay macnaha anigoo da'yar musician hadda soo caan baxay ahay oo haddana macnaha fanaaniin oo intaasoo qarni soo jirtay heesaha aan tumay ku heesayso taas ayaaba farxad aan la soo koobi karin marka aad u mahadsan tahay mustafa adiga mudan naasir saaxiibkayga aad u mahadsan yahay mustafa waa musician da'yar isla markaana ka mid ah musicianada ugu caansan magaalada London isla markaana in badan ay yaqaanaan dadka reer London waxaana oran karnaa waa musicianka ugu da'da yar ee haatan la yaqaano arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay soconayaan kacdoonno shacabeed oo ka soconaya wadamo ka mid ah Carabta iyo Afrika iyadoo Jabuutina la sheegay inay ka dhacday isku day noocaas oo kala ah dhammaan dadkii ka soo qayb galay bandhig faneedkan ayaa waxa ay tilmaamayeen arrimaha ammaanka oo halboolo weyn u ah Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ayna qaarkood dadkaasi carabka ku dhufteen inay waaye aragnimo weyn ka dhaxleen burburkii dalka Soomaaliya loona baahan yahay in laga digtoonaado kacdoonnada abuuri kara burburka dalka Abdinaasir Universal TV West London